بسم الله الرحمن الرحيم walaalkayga khaaliga ahow iyo walaashayda khaaliyada ah meel walbo caalamka aad ka joogtid idageyso oo farintani aday kugu socotaaye ha iska gudbinoo cid kale ha ku tuurin ibn Abbaas radiyallahu anhuma ayaa maalin wuxuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waaninaya nin وحونا كيري اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ودردارا إيوانك سعط قف والبو أمد محمد كمده إلى قيام الساعة وحونا كيري نبي ننكاسي كفا إذا شن أريمود ونلش على صومرة انتيسن كهليل شن كلا أو كلها ردونا وشن نعمة أو قيمة وين كله نلش بني آدمك أو الله أود يخ روح والبا أو هدي آدم كفائدة سنين دبدن بأو أركينين وجو وحيكون رافي دونا نسدها بينكي حالي أو تجي مسؤولين كرتا حالي وسؤاله جوابتها سأديك على سجايا دردارن كقوات كفائدة صدقني ماذا هذا أنت هذا جبوبين أما أيسن كهلين دقنمو أو فديك الدر يدجال قبيلات أتكع الروضة أو تكد فوضى أذو دلية تمرتك وجرتا هكود من ملعت لا كفائدة سو دتكاج يدلكاج وفائدة أو هي رئيسا وناجا أمد تركرتو مستقبل في عند سو تكبد بادو كن ليبانتو الدنيا آخره دردارن كلابادنا كفائدة سو عافمات كاجا أنت هذا حنون سنة أما أيسن جروح كعوريا منن أو سريرتك صارن أو دخاقي كريويدو عافماتك أنت تلاذهي نقر روح واحتر له سيئات ونقطو كوا هرك الله قال دونا نخو شاب نشأ في عبادة الله هسوين إلا أي جروح كسويررتو أو يكدبر جويسو مركاسي محي شلايتكو تري دردارن كسدحات كفائدة غني مدادا كهر انت ايسن نلشادا دبولين فقر iyo saboolnimo ogow lacagta waa waxyi maada hadana ka taga oo ku dhaafa lacagta ku soo martaa ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah ka qayb qaado qoodinta masaakiinta dhisid masaajid ceel qodis kafaala qaadid agoon sadaqa bixinta badso khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabad timir ah oo aad sadaqaysato dardaaranka afraad ka faa'iideyso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor ruux walba waxaa soo mara waqti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu waqtigaasi firaaqada ah kaga faa'iideysto wax manaafacaad leh oo nafsadeena faa'iido u ah ehelkeena faa'iido u ah dariskeena faa'iido u ah mujtamaca guud ahaana faa'iido u ah haddaba ma ka faa'iideysanaa waqtiga waa su'aale oo maalin walba quraan ma akhrisaa waqtiga firaaqada diinta waqti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xiriirisaa dadka xanuunsan ma booqataa si adna lagu soo booqdo markaad xanuunsato dariskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq daris kuguma leh mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yiraahdaan si aadan ogeyn oo buufis xan iyo warxumo tashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray ka faa'iideyso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin ogow qof walba waxaa soo marta cimri xadidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon waad dhimanaysaa waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn aan dhaqaaqi karin walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iideysta dardaaranka uu siiyey nabigan ku jecel oo raba inaad dariskiisa noqoto fil firdaws al-a'la insha Allah maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay